maalmihii ugu dambeeyay garab ka mid ah labada dhinac ee midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo wali isku hursan ayaa bilaabay iibinta aragti cusub oo ku wajahan tartanka doorashada madaxtinimada ee loo madlan yahay Soomaaliya taasoo si weyn u soo shacbaxday toddobaadkiina dhaafay markii ay dhaceen isqabadka Farmaajo iyo Rooble oo ku wada jira fiila Soomaaliya midowga musharaxiinta garab ka mid ah oo ay horboodayaan madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa bilaabay aragtida ku wajahan in tartanka doorashada loo madlan yahay laga reebo Farmaajo lana sameeyo eedo fara badan iyo cadaadis xooggan si loo gaaro in laga baajiyo gelidda hoolka doorashada tallaabadu waxa ay qayb ka ahayd qorshe hore u socday oo ay garwadeen ka ahaayeen dhowr dhinac oo ay dantu midaysay aragtida oo ah wali mid huursan laakiin ay garab socdeen falkin siyaasadeed iyo cadaadis la saarayo dhinaca ka soo horjeeda habayna ka hor waxa lagu bayaamiyay kulan lagu qabtay caasimadda Soomaaliya oo ay joogeen afar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta diiradana lagu saarayay cambaaraynta Farmaajo si tallaabada loo hirgeliyo dhinacyada qaba waxa ay doonayaan inay abuuraan isku dhac hubaysan oo ka dhaca caasimadda Soomaaliya banaanbaxyo rabshado wata iyo in la adeegsado awoodda ra'iisul wasaaraha oo ay hadda ishayaan Farmaajo xilalka laga qaado taliyaasha laamaha amniga iyo cid kasta oo lagu tirinayo inay saaxiib dhow la tahay Farmaajo mid ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ayaa kulankii Muqdisho ka sheegay in taliyaasha warkoodii ahaa inay siyaasadda ka dhex baxaan oo aysan ciidamadu ku milmin aysan ku filnayn arrintooda oo ay tahay inay iscasilaan haddana wuxuu sii sheegay in la magacaabi doono taliyaal aan dagaal gelin taasoo durba muujisay awoodda la isticmaalayo inay tahay midda wasiirka koowaad ee dowladda Soomaaliya xubnaha midowga ee tallaabadan ka shaqaynaya waxa ay walwal ba'an ka qabaan in doorashada Farmaajo qayb ka yahay ama tartankeeda musharax u yahay ay adag tahay in la galo waana sawirka guud ee durba la bixinayo marka ay xubnahan sharaxayaan aragtidooda aragti kale waa in la kala reebo Deni iyo Farmaajo midkood ka hor inta aan la aadin sanduuqa codbixinta sababtoo ah labaduba waxa ay ka soo jeedaan isku qoonda beeleed kasako waxa ay qayb ka yihiin xubnaha la filayo inay wareegga koowaad heli doonaan codad ay kaga gudbi karaan ama haddaba la sii og yahay inay gudbayaan musharaxa kaalinta saddexaad galana uma badno inuu hore u sii gudbo durba waana saadaalinta ay bixinayaan xubnaha kala duwan ee ka shaqaynaya in labadan siyaasi ugu horrayn bannaanka lagu kala reebo Deni iyo Farmaajo hadda kooxdan midowga musharaxiinta waxay aaminsan yihiin in Farmaajo ay ku dhigi karaan taasoo dhinaca kale saamaynaysa ahaanaysana mid adag balse waxa la abuuraya wax kasta oo ay xaaladdan ku dhici karto oo ay xataa ku jiraan dagaallo hubaysan oo ka dhaca caasimadda Soomaaliya qayb ka mid ah midowga musharaxiinta oo ay horboodayaan madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre ayaa ka shaqaynaya dadaal nabdooni ah doorashada in la dedejiyo la saxo habraacyadeeda sanduuqana lagu kalsoonaado waana xubno muujinaya inay rajo ku qabaan in Soomaalidu ay ka shaqayn doonto isbeddel siyaasadeed oo dhaca marka la gaaro doorashada madaxtinimada maadaama hadda sida ay wax ku socdaan dawlad goboleedyadu ay yihiin kuwa ugu badan ee leh doorashada awoodeeda ayaga aan la colaysan Farmaajana doorashada laga wareejiyay xil hore oo waqtigan aysan waxba gacantiisaba ku jirin ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda